Feysal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga mucaaradka u ciido qaar ka mid ah warfideenada kula hadlayay magaalada Hargeysa waxa uu ka hadlay jawaab adagna ka bixiyay hadalkii ka soo yeedhay dawladda Soomaaliya ee ku saabsanaa heshiiska ay Soomaaliland la gashay dalalka Itoobiya iyo shirkadda DP World laga leeyahay isku tagay Imaaraadka Carabta. heshiiskani waa heshiis Soomaaliya sharci u leedahay heshiiso hore badan adduunka la gashay waa de facto state waxa heshiiskan Soomaaliya dawladda Soomaaliya iska magaca ah waxaan ku heshiinay markaan ahayn wadahadalladii Soomaaliland iyo Soomaaliya 2013 Istanbul in wadan kasta uu xaq u leeyahay wixiisa inuu horumarkiisa samaysto taas waa tilay nagu sameeyay special arrangement-ka Somali Compact mashruuc loo oran jiray madaxweynaha Soomaaliland iyo madaxweynaha hore Xasan Sheekh labadii madaxweyne horeba waxay ku wada shireen 2014 December Djibouti waxa lagu heshiiyeen wixii horumara aan magaranayay aan qolka xaq u leedahay inta yar magaranayay Somali Bantugi wasiirka dekedaha ya kama berbera kama talin karaan waa qaladkan saxayno 60 kii dhacay inta la dalkeega waxaan noqoninba oo ka hadlo laakiin wax dawladda halka ka jirto Soomaaliya laba waddan ka taal Soomaaliland iyo Soomaaliya tani waa jirtaa Soomaaliland waa jirtaa oo adduunka la macaamisha laakiin wax Soomaaliya ma jiro digma qoor ma haysto ma tii kara xalane kismaayo wax uga dhow huura uga dhow oo Kenya gacanta ku haysa wuxuu ku berbera muxuu ka yaqaan waxa weeyaan waa nin iska laab kacay laakiin shacbigaana waxba u sheegay min hawiyaha leeyahay shacbigi aan wanaag naga dhaxeeyo wuxuu qabiilka Jooba haysta ka Baydhaba haysta ka Majirtee haysta ka Gobolada Dhexe haysta was the government sidoo kale isagoo hadalkiisa sii wata gudoomiyaha xisbiga mucaaradka u ciidan jineer Feysal Cali Waraabe waxa uu hambaliyay gurihii wasiirada ee ka qayb qaatay heshiiska laba geesoodka iyo saddex geesoodka ahaa ee Soomaaliland Itoobiya iyo shirkadda DP World ku dhexmaray isku tagay Imaaraadka Carabta aad iyo aad u mahadnaqaya magaranaysaa wadamada ka qayb galay saxaas Itoobiya iyo DP World ee Imaaraadku leeyihiin iyo Soomaaliland waa hambalyeynaya waa talaabo aad iyo aad u soo dhaweynayno waxa halka ka muuqata arrimo badan waxa ka muuqata in Soomaaliland ay noqotay dal la aamini karo oo la isku halin karo oo heshiis geli kara oo la maal gashan karo ka dhalatay halka waxa ka maratay wadamada IGAD amba Horn of Africa halkii colaad u dhaxan jirtay inaynu cooperation wada xaqabsi iyo magaranaysa inta Djibouti waxaan weydiin in qoladii daafacaysay lahaa Feysal deemaal buu qaatay kaaga passport qaatay maanta kala cadaatay moogta iyo macaawiso moogta marka ayagana kaasan waan eegnaa waan ka tashanayna oo tagayna madaxweynaha Cabdiraxmaan waas arkana mowqif midaysan ka gaarina